بسم الله الرحمن الرحيم مقالة محلي هذا سن كوازي حوص بالي هذا ومقالة بورة أيضا نبأ بورة هم بلسيد الله قري إيجا حلقة سي الله قري إيجا وبورو لهجا شيء لقى شقيي ومقالة أيضا نبأ قد كجرتو دنكا كلام كقبتو وبور وين aad bay u dheertahay buurtan sida arkaysaan dhinaca kore bir baa ka taagano malahayga waxa weeye midda isgaarsiinta weeye dhanka kale haddaan ku qabto dhankan waa tareenkii wadadii tareenku maraya weeye marka aad baa looga shaqeeyay magaalada magaceeda waxaan rabay inaan ku qabto marka sida arkaysaan waa laga shaqeeyay wadankan ciyaar iyo qosol kuma imaanin waxay ku timid dadaal iyo rag tashaday waxa la rag tashaday dhulku waa toli karaa taaka labadeed haddii marka walaalayaal annaga isku joodno oo qabiil iyo qurun iyo waxa macna ku jirno horumar aan lagu gaaraynay fadhi ku dirir aan ku jirno horumarkan iyo tareenadan iyo magaalo dhan oo buur ahaydoo la kala jeexay oo caynka u taalo hadee lama keeni karo weeye wax walbana shaqay rabaan halkan waxa ila joogo mid kamida dhalinyarada Soomaaliyeed halka horta aan joogno wadanka Jarmalka magaaladan Sangwaza House la yiraahdo magaalo yar maanta waan soo baxnay oo waxaan iska soconaa magaalo Koblenz la yiraahdo si asxaabta iyo halkan iska soo damaashaadno marka Cabdi oo balka waran markaad eegto magaaladan buur bay ahaan jirtay meesha hadda ka dambayso dhinacaas webi baa maro weyn oo hataa webigaas ilaa Faransiisku tagaa webi aad u dheer weeyo oo dakhli badan baa ka soo galo maraakiibta yaacaysi dalxiiska waa yaabaysa marka maxaad leedahay Soomaalidu gorbay heer caynkaana gaari doontaa wallahi cali oo de horta Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma hadskale in kasto ahnaan video hadda inaan duubna aan yaani ku talagelin haddana waxyaalo waxa jira kugu kalifaya markaad aragtay ugu waxa rag baa iskale dad baa dhistay dad baa juhdi galiyay dad baa adduunka wakaasaak buurahii baa la kala jeexday tareemaa la saartay gaariyaal annagu meelaha quruxda badan baan iska istaagnaa isku soo sawiraynaa maxaa annaka noo diiday Soomaaliyeey kanu nagama aqli badnaa nagama sharaf badnaa bal iska dhaaf annagaaba ka sharaf badan oo islaam baano Ilaahay baa na karaameeyay inkastoo walaqad karamna bilaa ku jira haddana anagu si khaas ah ka siinaa walaalayaal marka maxaa sababay waxaan inaan soo qaxno dhulkan ay ka soo cararno oo saaka nimaano nin gurigiisa oo quruxda badan aan isku sawirno waxa galifay aqli xumadanada iyo dandimada xunna iyo dareenimada xumada waxaan anigu marka leeyahay Soomaaliyeey meeshan nin baa iskale nin baa dhistay dhulkanaga aan dhisano lama huraan waa cawska jiidaal wixii aan la hurayno waa dhulkanagii dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa walaalayaalow saaka jiilkii wadanka la rabo inay wax u qabtaan oo dhistaan oo hadii alla ku sugan wadankooda hagaajiyaan waa annaka qabiil aan iska dayno qurun aan iska dayno baqti aan iska dayno reehbal aan iska dhaafno waad aragteen hadda tacsina waxaan u dirayaa dadkii walaalaheena ee maalinka dhaweyta ex control ku baaba'ay ee aqoon-yahanada ah ee dhalinyarada ah ee u bixi wadanka u soo kacay ah taasoo kale inaan waxa la rabaa inaan inta ku midowno oo ayna xoog aan ku yeelano dhacdooyinkaas oo kale aysan ugu soo noqon ummadda Soomaaliyeed waxaan leeyahay siyaasiyiintan aysan nasirin siyaasiyiintan markay rabaan qabiilkan ugu kacsanaya markay rabaan oo ay wax waayaan leeyahay anaga reehbana markii dadkii umaydkii oo yaala siyaasadaysanaya oo leh saasa la jibo saasa la yiri ummadda Soomaaliyeed dhalinyaro aan midowno gacmaha aan isqabsano siyaasi tuuga oo mintu kursigaas ku fadhiyo aan dad aqoon markuu ka degana rabah inuu rabo aan uusan khaldin aan midowno wadankanaga inaan dhisano aan midowno inaan iskaalmayno aan midowno dadka walaalaheena ee dhaawaca inaan taakuleysano aan midowno kii tabar daran inaan gacan qabano Soomaaliyeey midnimo qabiil iska dhaafa saaka qabiil qof wax tari ma jirta wuxuu dumiye maahan nin siyaasi oo dantiisa watayaan yuusa ina khaldin nin siyaasi oo maalinkaas si wax ka yihiin oo raba inay wax qabsadaan yuusa ina khaldin ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa dadkii dhintay way naga wada dhinteen dad gaar kama dhiman waan inii tacsiyeynaa xanuunka waan la qaybsanaynaa waan la mudoomeynaa kuwa saas noo galayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala jaziyada mariyo annakana maalin baan ka aarsan doonaa waxaan aad ugu xumahay qof dad mas'uul sheeganaya wuxuu doono aad darajo kasta ahaado oo dadkaas dhintay ee walaalaheena saaka siyaasadeynaya ama si kale u wada waan ka soo horjeedaa mas'uuliyad darro waa imaan kartaa
dayac wuu imaan karaa laakiin wixii waa dhaceen waxa la rabaa inta midowno oo gacmaha isku qabsan warse uga hortagnaa wax dambe inaysan dhicin Soomaaliya midnimo u rajeynaya Soomaaliya guul baan u rajeynaya Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته كاسنا وحوها عبد الخضر وكمد dhalinyarada aad baad u mahadsantihiin una ku mahadsan yahay sida maaragtay oo la qaybsaday ummadda Soomaaliyeed xanuunka hayo marka aad baa u mahadsantihiin tareenka imaaday saad arkaysaan tareenka raacayna maanta waxaan u soconaa magaalo la yiraahdo Koblanis marka adduunku waa horumaray waad arkaysaa tareenadaas iyo maaragtay sida maaragtay wadanka dadku u dhistay koraleeyaal waxa loo baahan yahay in wadankeena saa u dhisano inaan ka taxadarno in maaragtay wax badan aan fiirino halkaan fadhiisteen inta aan ku kulmayna barnaamij caynkaas oo kala waxaan idin leeyahay ila liqaa